Hi guys, assalamu alaikum. Seetihiin wanaga kuwin xawaas soo dhawaada awaran xawaas family. Salihay Ramadan Mubarak. Waa ogahay waa idinka soo daadahnaa laakiin Ramadaanka jiqa isku tahay xaawo kaligeed waa meel kastiida ururos. Wi ma fahamteen. So iska dulqaata inta Ramadaanka laga baxayo. Insha Allah saan isbuucii hal video ina idiin soo geliyo bas ay noqonaysaa. So maanta waxaan ka hadlaynaa video maanta waxaan rabaa inaan idiin sameeyo video idinkeeda ka codsateen oo ahay xaaw kasoo hadal kukarka oo korontada ah iyo kukarka oo gaaska keebaa fiican. So aniga horta kukarka gaaska min zaman isticmaalayay kowda horeeto kukarka korontadana waxaa isticmaalayaa muddo dheer 8 bilood 9 bilood waa dhihi karaa umaleynaa 8 bilood inaan isticmaalayo umaleynaa. So almuhim maanta waxaa ka hadlaynaa farqiga u dhexeeya labadooda, midkee faa'iido badan, midkee riski ah, hadda halis leeyahay hadda macnaha riski jiro iyo haddii kaleeto. So waxaas dhan waan kada hadli doonaa. So marka number 1 sababaha ani aan u iibsaday kukarka oo korontada waxay ahayd in kukarka gaaska uu gaaska cayuu iga dhamaanayay oo asoon ka warhaynin uu iga go'ayay ayo maxay ahayd gaas waayona ay jirtay gaaska la waaynayo mararka qaar dhuxul in loo noqdo ee noqoto markaas go'aan ka gaaran ma fahamteen macnaha gaas dhan la waayaa lagu leeyahay gaas dhan la waayaa la dhahaa markaas waxay noqonaysaa inaan dhuxul isticmaalo ilaan gaaska maalmo dhan la waaynayo ku dhahay cir iyo dhul meelshi lagala gaas laga soo helayna marka saas waxaan ku go'aansaday inaan isticmaalo midkan kukarka oo korontada ah. Marka aniga kukarka korontada marka ugu horeyso khasaaro xagga oo korontada ma ii keenin oo korontada kharashka lacagta korontada ma igu badanin ma fahamteen yani korontadeeda dhowr iyo 20 dhiibi jiray 35 camal 36 ay noqotay. So caadina waa because of kukara wax ku karsanaysaa qado quraac casho ma fahamteen iyo wixii dheeraad ah dhan marka 36 ee korontada tagtay horta goor korontada intaas ay u darsantay wax weyn ugu darsamin laakiin laba cilad uu leeyahay kukarka korontada laba siyaabood mid kamid ah horta waa iskaga dulqaadanaya muddo miisaana ku isticmaalamo laakiin midda kale waa midda degdeg iskaga bedelayaan ku dhahay kukarka yaa so akala qaadno midda ugu horeyso ah kukarka horta oo korontada wuxuu leeyahay cilad slow tartiib waay yani sida gaaska camal degdeg ka daartay inaad wax ku karsatid ma ku karsan kartid ma fahamtay yani ma ku kala tuurayo yani slow waay tartiib uu karinaya waqti dheer uu qaadanaya marka waxay noqonaysaa inaad dulqaad samaysid. midda labaad ee kukarka korontada aanan kaga helin waxay tahay oo halisna riski iyo maaso waxa ku qasbantahay inay isticmaashid bas qaandooyinka iyo waxyaabahaas oo alwaaxa ka samaysan ma fahamtay isticmaali kartid anything else like xataa kuwa ka samaysan maxaa la dhahaa caaga ka samaysan xataa ma isticmaali kartid because kuwa caaga ka samaysan shay adi cuno oo like karinaysid caaga oo kale ma isticmaali kartid waxaa ku qasban tahay bas inaad isticmaashid alwaaxyadaas xataa alwaaxyadaas mararka qaar anoo isticmaalaya dhowr mar waxaa dareemay maaso meel dheer ma fahamtay so maalmihii ugu dambeysayna hilmaamkeyga batay qofka xamilo waa taqaanii hilmaamkiisa meel ma jiro hilmaamkeyga batay waxaas arkaa anoo qaandada birta soo qabsaday talaq la galay marka korontada qabashadeeda aad iigu badneed halisna waaye ani ahaan halis waaye because of ayadoo koronto ahaan ayadoo aanan ku isticmaali karin qaanta bir aanan ku isticmaali karino koronto ahaan uga baqaysid haddana waa iska naqaanaa Soomaaliya haddaad joogtid lacala special haddaad Soomaaliya joogtid korontada beek waa iska naqaanaa mararka qaar power zaid lagu soo daayaa so mararkaas oo kale halis ku jirtaa ma fahamteen risk waay marka anigu waxa ugu badnaay reasonka ugu badan iska bedelay waxay ahayd maasada sababtoo
slow soo shaqeynaya haddana laakiin maasada igu soo zaa'iday oo weliba zaa'id soo noqotay maalmihii ugu dambeysay oo aniin hilmaamkeyga batay waa is ilaabaya waxaa soo qaadanaa qaandada oo qaandada caadiga ah oo ka samaysan macdanta ka samaysan aan soo qaadanaa aan la galaa ma fahamteen marka labadaas ciladood ee ahayd ciladaha isaga bedelay ani ahaan gaaska wax aanan ahayn gaas ducidda iyo weysmada waa wax ugu weyn aan ugu nabcahay oo dhacdo soomaaliya yani xaaliyan yani caadi ugu dhacdaa waaba ka jirtaaba tala kale maba qabaanba gaas baa lagu leeyahay marka bas labadaas ciladood leeyahay gaaska laakiin sidiisa kaleeta ani gaaska ahaan gaaska korontada gaaska safe ila eh korontada zaa'id riskigeeda badan ma fahamteen so kukarka korontada waxay dhahdeen ma wanaagsan yahay mise wuxuu yahay waa kaasaa lama wanaagsana ani ahaan makula talin lahayn qofna inuu isticmaalo ani waa soo isticmaalay waa soo arkay wuxuu yahay waana riskigiisa badan halis waaye korontada ku qabato haddii ku disho kabar marka garir kusiiso waa ka cararaysaa dhabaday kusiiso lagaa fujin waayo ay ku dhimatid meesha marka halis waaye ani ahaan soo idinkulama talinayn inaa isticmaashiin kukarka korontada intaa idin soo saari doonaa sawiradiisa qiimihii aan kusoo iibiyey laakiin ani ahaan waxaa dhihi lahay nab hasku isticmaalina ma fahamteen so I hope video inaad ka hesheen haddii ay haysiin fikrad video ay idin soo sameynayo please iga caawiya because of subaxii baa soo kaca shaqo nadaafad guri sameys وبعدين afar karis وبعدين waa badaalanaha ma fahamteen fikrad dhanaba anduubo oo darda ra'yiga igu soo dhici jira bogtahay maskaxdayda daalantahay ra'yi ma soo dhacayo so I hope inaa ila wadaagtiin oo iga caawisiin wixii fikrad ay haysiin video idin anfacaya u baahan tihiin iisoo qoro comment igu soo qora ama instagramka bum igu soo siiya sidoo kale intiina badan waxay weydiiseen maxaa u joojisay musalsalkii ahaay fiidiyoyada cabsida sheekooyinka cabsida la soo deejirtay maxaa u joojisay horta min zamaan aa joojiyay sababta u joojiyay ugu horeysa waxay ahayd in dadka qaarkood ay aad u cabsan jireen laakiin hadda yani laakiin xilli hore waxaa qorsheynaya ramadaankan inan kaga dhigo sida musalsal camal ma habeen kasta ay idin soo geliyo habeen kasta bacdal afur idin soo dhici lahaa musalsal fiidiyoyada oo sheekooyinka cabsida ma fahamteen laakiin laka xumahay xaamilo ahay waxaa isku arkay marka fiidiyoyada cabsida a fiirsado sheekooyinka ilaan sheekada waa ina aanay idiin soo raadiyo saa idin kugu soo gudbiyo mise ma so marka sheekooyinka raadi amaaday waxaa isku arkay intaa sheekooyinka dhegeysanayo ama aa fiirsanayo xaloosha dhana ay ka kaceyso cabsida olba yani waa cabsan jiray laakiin hadda yani waxaa dareema cunug caloosh ku jira xataa inuu saameyn ku leeyahay camal oo caloosh dhan ay boodboodaysa almuhim ma fahamteen marka ziyaada u arkay saas darteed way ii suurtageli weysay in ay idinla soo wadaago laakiin insha allah hataa dhalo we back ee noqonaysaa sheekada waan soo daynaa ma fahamteen so I hope videogeena ka hesheen hadaa ka hesheen channelkeena please subscribe saar like saar videogeena share la wadaag asxaabtiina and comment down below inuu video kale idinka nabad qabo waa inuu video kale anagoo nabad qabno insha allah bye guys